haweeney da ah oo u dhalatay waddanka Shiinaha ayaa hantideeda oo gaaraysa 20 milyan oo lacagta Shiinaha una dhiganta 2.8 milyan oo dollarka Mareykanka waxay ku saxiixday xayawaanada gurigeeda kula nool dhimashadeeda kadib iyada oo qadisay gabi ahaanba ilmaheeda maadaama dhinaceeda ay ka waysay oo aysan soo booqan jirin ama aysan siin jirin wehelkii ay uga baahneed. sidaa darteed xayawaanada isugu jiro bisadaha iyo eeyaha ee gurigeeda la joogay oo aan hal maalin dhinaceeda ka faaruqin ayay ku abaalmarisay hantideeda iyada oo sheegtay in gadaasheed ay doonaysay xayawaanadaas ay hantida ku raaxaystaan. sheekada haweeneydan waxay hadalhayn qaran u abuurtay guud ahaanba dalka dhaca qaaradda Aasiya ee dhaqaale ahaan adduunka ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan. 3 caruur ah oo ay dhashay waxay awoodi waayeen in ay xitaa isku bedelaan oo ay xanaaneeyaan hooyadood ama ay wehel u noqdaan. booskooda waxaa si hagar la'aan ah u buuxiyay eeyaha iyo bisadaha guriga la joogay kuwa oo aan hal maalin faarujin. waxayna hadda ku sharfaysaa inay dhaxlaan hantideeda eeyaha iyo bisadaha guriga kula nool iyo ilmaha ay dhali doonaan mustaqbalka. dhakhtarkii daweyn jiray haweeneydan ayay wakiil ahaan hantideeda ugu wareejisay si uu noloshooda ugu maareeyo sida uu qabo sharciga Shiinuhu. dadka Shiinaha ku nool ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aanka haweeneydan kuwaas oo intooda badan ku taageeray go'aanka ay qaadatay. haddaba adigu ma samayn lahayd haddii sidan oo kale ay kugu dhici lahayd? A wealthy woman in China has decided to leave her $2.8 meters fortune to her pets, and her 3 children will get nothing, say reports. The woman from Shanghai, with the surname Liu, decided to cut her children out of her will because she felt they neglected her in her old age and did not visit when she was ill, the South China Morning Post reported, citing Zonglin News. Meanwhile, her beloved pet cats and dogs remained by her side, she said. Her dramatic decision was greeted positively by some Chinese people online. Well done. If my daughter treats me poorly in the future, I will also leave my house to others, one said. It is unclear how old the woman is, but the report describes her as elderly. Her will now dictates that the money must be spent on her pets and their offspring after she dies, per the report. As it is not legal in China to leave the money directly to the animals, a local veterinary clinic will be responsible for the pets and be the administrator of the inheritance. An official from the Eastern China branch of the China Will Registration Center said they told Liu there were risks in putting the pet clinic in charge of all her money, according to the South China Morning Post. We told Auntie Liu that if her children change their attitude toward her, she could always alter her will again, the official said. Several previous instances of pets inheriting fortunes include a German shepherd named Gunther III, who inherited $65 million from his German countess owner.